subax wanaagsan akhyaarta hawada ee nagala xiriirta saacada Afrikada bari waa 7 subaxnimo 23 bisha Maarso 2020 qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah cudurka coronavirus oo faraba aan ku haya caalamka dalalka Yurub ayaa ugu sii daran Afrika kama marna oo dalka Kenya waxa albaabada la isugu dhuftay masaajidada masjidda waa la xiray masjidda qaarna maqribkii baa la xiray go'aanka jiirku soo baxay maqribka wax yar ka hor qaarna maqribkii bay tukadeen oo way xireen qaarna cishihii baa u dambeysay cishihii wixii ka dambeeya masjidda way xiran yihiin intaan ka warhayo cudurka coronavirus waxa uu saameyn ku yeeshay qayb badan oo kamid ah dunida isla markaana waxa hakad galay socodka iyo waliba ciyaaraha oo qaar kamid la baajiyay waxa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan nafsi ruuxi gaaxsha godolkiisa maale sidanaanigu ku gala igafinay sidadiguya argudashadaaduna garilaahay wey يا سلام وأبوان أحمد سليمان طبيع ونوو ورمي وايهي سيدان كسوغانتا سوصارها برامجكونا وعيسى حاج عبد الله وأحمد بدر أياد الله سعودين دونا qodobada iyo qodobo kale Soomaalida iyo caalamka ku saabsan waa inoo soo socdaan balse marka hore aan ku bilaawno warkii dunida iyo Bashiir Maxamed Caato mahsanid Ahmed Ra'iisul Wadanka Japan Shinzo Abe ayaa qeeray in ciyaaraha Olimbikada ee loo ballansanay dalkaasi ka dhacan xilliga xagaaga dib loo dhigay sabab la xiriira xanuunka corona oo dhibaato ku haya dalal badan oo caalamka hay'adda Olimbikada adduunka Canada Australia ayaa iyaguna sheegay in aysan suurtagal ahayn in ciyaarahaasi qabsoomaan maadaama ay taagan tahay dhibaatada caafimaad ee ka dhalatay xanuunka corona ciyaarahan ayaa loo ballansanaa qabsoomaan bisha July waxaana maxay qayb ka yihiin tartamada ciyaaraha adduunka ee la baajiyay maadaama ay ka sii horeeyeen tartamo badan oo ay ka mid yihiin ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Yurub oo hore loo baajiyay ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhimatay mid ka mid ah xabsiyada ugu waaweyn ee wadanka Colombia kadib markii ay dhacday waxa ay mas'uuliyiinta wadankaasi ku tilmaameen isku day baxsasho ay sameeyeen qaar ka mid ah maxaabiista kuwaasi oo ka cabsi qabay faafidda xanuunka corona wasiirka cadaaladda ee wadanka Colombia Margarita Capello ayaa sheegtay in sidoo kale isku dagan ay ku dhaawacmeen 83 maxaabiis waxaana inta raacisay in ay ku guda jiraan baaritaanka ku waadan arintan Miss Capello ayaa sidoo kale sheegtay in 33 maxaabiis iyo 7 kamid ah ilaalada xabsiyada ay jiifaan isbitaal halka 2 kamid ah ilaalada maxaabiistana xaaladoodu ay aad u daran tahay arintan ay dawladda dalkaasi ku sheegtay in ay ahayd mid la qorsheeyay midkaasi lamadana laga soo sheegay qayb kamid ah wadankaasi waxa kale oo ay sheegtay in qaar kamid ah maxaabiista mar kale lagu soo oogi doono dacwad isku day dil ah iyo burburin hantiyadeed qaar badan oo kamid ah ehelada maxaabiista ayaa isugu yimid afaafka hore xabsiga kuwaasi oo doonayay inay ogaadaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii uga xirna xabsiga waxaana ay sheegeen inay maqleen dhawaqa rasaasta oo kor loo riday kadib markii ay yimaadeen booliska madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa xanuunka corona ku tilmaamay mid khalkhal galiyay qaranka Mareykanka xilli uu ku dhawaaqayay gargaar caafimaad oo la siinayo gobolada New York, California iyo Washington isbitaallo dheeraad ah ay dawladda Mareykanku sheegtay in laga hirgelin doono goboladaasi kuwaasi oo loo dhameystiri doono qalabka ay u baahan yihiin madaxweyne Trump ayaa gobolka Los Angeles u diray ciidamada badda si ay gacan uga geystaan la tacaalida xanuunka corona mas'uuliyiinta Falastiiniyiintana waxay bando ku soo rogeen daanta galbeedka kaasi oo socon doona 2 toddobaad ee soo socda si loo joojiyo faafitaanka xanuunka corona go'aankan ayaa yimid kadib markii ururka Xamaas ee ka armay deegaanadaasi ay xaqiijiyeen 2 kiis oo xanuunkaasi amarkan ayaa ka dhigay in qaxootiga Falastiiniyiinta ay ku jira xeryaha aanay ka soo bixi karin oo aysan u shaqo tagi karin magaalooyinka kale waxaana sidoo kale la mamnuucay dadka u safraya Israa'iil talaabada ururka Xamaas ayaa waxay keentay in dadka ay ku yaacaan dukaamada si ay u soo iibsadaan waxyaabihii u baahnayeen 2 toddobaad dhanka kale qaramada midoobay ayaa ka digtay xaaladda Falastiin oo ay sheegtay in haddii aan la xakameyn xanuunka corona ee Falastiin ay noqon karto musiibo bini'aadan ugu dambeynna dawladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday bandow habeen iyo maalin ah xilli dawladda dalkaasi ay la daalaa-dhacayso wax ka qabashada xanuunka dunida aafeeyay ee corona sidoo kale dawladda Bahrain ayaa gabi ahaanba mamnuucday isu imaatanka dadka badan 5 qof halka wadanka Kuwait ay bandow ku soo rogtay gudaha wadankaasi warkii caalamkana waa naga inta Bashiir Maxamed Caato warkii dunida ayaa degeysanayseen u diyaar garooba qaybaha idaacadda subaxnimo inooga haray aan ku bilaawno sida wararka aad ku maqlayseen caabuqa coronavirus ayaa faraba aan ku haya dalalka kala duwan ee caalamka waxa si kordhaysa guud ahaan caalamka tirada dhimashada ee cudurkani iyo tirada dadka uu soo ridanayo
wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayeen dalal badan ay markaasi tillaabooyin ay uga hortagayaan cudurkaasi ay qaadeen. dalalka Yurub ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee cudurkani faraha ba'an uu ku hayo. wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa iga waramay xaaladda Yurub ee cudurkan. badana wadankan Ingiriiska sida wadamo kale oo Yurub waxaa dhibaato weyn ku haya safmarka viruska corona. waxaa hadlay xalay fiidkii ra'iisul wasaaraha Boris Johnson oo imika maalin walba ka hadla viruska corona, waxaana uu sheegay in dawladdiisu aanay la dhacsanayn sida ay dadku u dhaqmayaan, waayo dadkiiba la kala fogaada ama social distance. dadkiina waxaa dhacday inaanay kala fogaanin. maanta xeebaha dadka Ingiriiska aad baa laysugu soo baxay. maalintii la xusayay maalinta hooyada, hawaduna way fiicneed, marka waxay keentay in dad badan ay soo wada fadhiistaan, taasi oo laga baqayo in cudurku sii faafo. tirada imika dhimashada Ingiriiska waxay maraysaa 280 qof. 24 saacadood ugu dambeeyna waxaa dhintay 48 qof oo ku jiro qof 18 jir oo laakiin la yiri wuxuu lahaa cudurro kale ayaa hayay. 5700 qofna imika waa soo ritay koronuhu. marka waxaad moodaa dawladda Ingiriisku inaanay aad ula dhacsanayn sida dadkeedu u dhaqmayaan. dhanka kale wasiirka deegaanka iyo dawladaha hoose ayaa hadlay, waxaana sheegay in militariga Ingiriiska qaybaha saadka iyo qorsheyntu ay caawin doonaan in dadka jilicsan raashinka loo geeyo. marka waxaad moodaa inay dawladdu tallaabooyin badan oo kale soo wado iyada oo safarkuna uu weli socdo. bal waxaad faahfaahin kale naga siisaa dalalka kale ee Yurub, iyaguna waxaa jira dalal kale oo fara badan ku haya cudurkani. waa sidaad u sheegtay, dalal badan oo Yurub ay fara badan ku haya, gaar ahaan dalka Talyaaniga oo imika gobolka Lombardia waqooyiga ku yaala, oo runtii halkaasi ay masiibo weyn ka dhacday oo Talyaaniga ay u taag waayeen. inta dawladdu waxay qaaday in aad loo sii hakiyo in dadku halkaasi ay u soo baxaanba, waxaana la geeyay military badan oo Talyaaniga ah. xaaladda Talyaaniguna way adag tahay. dalka Spain waxa la kordhiyay xukunkii degdeg ahaa, marka waxaad moodaa iminka Talyaaniga iyo Spain inay Yurub ku daran yihiin. dalka Jarmalka laftigiisa ra'iisul wasaarihii ayaa karantiile la geliyey oo tidhi ma soo baxayo. waxaa kaloo Jarmalku mamnuuceen 3 qof wixii ka badan inay wada istaagaanba. laakiin waxaa lala yaabayahay dalka Jarmalka oo ah dalka ugu dadka faraha badan la Yurub in aan cudurkani dad badan aanay ku dhiman, oo imika weli dad 100 ka yar ama gaadhayaaba ay ku dhinteen baa la leeyahay. taasi oo culimo badan ay la yaaban tahay waxaa Jarmalka sidaasi ka dhigay. laakiin dawladda Jarmalka tallaabooyin badan ba qaadaysaa. wadamada kale ee Yurub iyagana waxaa laga soo wada sheegayaa dhimasho iyo dad uu soo ritay coronavirus. wahagaaga kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Bidhaan oo khadka telefoonka markaasi iigu waramayay. haddaba cudurkani coronavirus ma jirto qaarad uusan gaarin markaasi, isla markaana waxaa qaaradaha kala duwan ee caalamka ay dalalku la tacaalayaan sidii ay u xakameyn lahaayeen cudurkani. waxaa imika stuudiyaha ila fadhiya Bashiir Maxamed Caato. Bashiir, bal ka waran wararkii ugu dambeeyay cudurka corona ee guud ahaan caalamka. axmedow, qaarad walba adduunka waa uu sameeyey. dalalka xanuunkan uusan ku dhicinna si dadban ayuu u saameeyey. tusaale ahaan oo kaleeto wadankii markii wadanka uusan ku dhicin waxa uu la macaamili jiray wadamada kale caalamka, haddii ahaan lahayd ganacsi ama waxyaabo badan oo kale. marka maadaama adduunkii oo dhan isu socodku yaraaday, waxaa muuqata wadan walba oo caalamka inuu saameeyey. haddii aanu ku horumarno bariga dhexe ee dowladda Sacuudiga ayaa waxay soo rogtay bandow soconaya 2 toddobaad ee soo socda. sidoo kaleeta boqorka wadankaasi Sacuudiga ayaa waxa uu dadku ku booriyay inaanay banaanka u soo bixin oo ay guryahooda ku nagaadaan. wadanka Bahrain waxaa la mamnuucay in dad ka badan 5 qof ay isugu iman karaan goob markaasi banaana, halka dowladda Kuwait ay soo rogtay bandow habeenii maalin ah, maadaama dalkaasi 24 saac la soo dhaafay laga soo wariyay in 12 qof oo qaba xanuunkaasi lagu arkay wadankaasi. Masar haddii uu dhimaadno, madaxweynaha wadankaasi Cabdifataah al-Siisi waxa uu dadku ku booriyay inaanay khalkhalin oo raashinka yaala dukaamada aanay eber ka dhigin, oo wuxuu yiri dadku waxa loo baahan yahay si xigmadaysan oo aqliyadaysan ay wax u iibsadaan. sidoo kale wadankaasi waxa lagu soo warramay in 14 qof ay u dhinteen waa wadanka Masar xanuunkaasi corona. Mareykanka haddii aan eegno, madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo gargaar lagu gaarsiinayo gobollada uu ka mid yahay New York, California iyo Washington. isbitaallo cusub ayuu Trump sheegay in la dhisi doono kuwaasi oo loo dhammaystiri doono qalabkooda si loola tacaalo xaaladda. waxaana uu sidoo kale madaxweynaha sheegay in ciidamada badda ee wadankaasi loo diri doono gobolka Los Angeles si ayaguna ay gacan uga geystaan dadaalada ku aadan wax ka qabashada xanuunkaasi. dhanka Falastiiniyiinta aynu ognahay in xaaladoodu markii horeba iska ahayd mid aad u liidata. Xamaas ayaa waxa ay bandow ku soo rogtay daanta galbeed, halkaas aynu ognahay inay ku nool yihiin dad badan oo Falastiin oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha qaxootiga. marka taas waxay ka dhigan tahay in dadka qaxootiga xitaa aanay banaanka u bixi karin. sidoo kale waxaa la mamnuucay dadku inay u safraan dhanka Israa'iil maadaama xanuunkaasi laga baqay inuu ku faafo deegaanadaasi iyo wadamadaasi.
qaramada midoobay waxay sheegtay in haddii wadanka falastiiniyiinta xaaladda xanuunka aanan waxba laga qaban ay ka sii dari doonto oo ay noqon doonto musiibo banaadan. sidoo kaleete axmedow, suuriya waxaa wasiirka caafimaadka wadankaasi Naziir al-Yazdi uu sheegay in kiis ka mid ah xanuunka corona lagu arkay wadankaasi ayna qaadeen tallaabooyin lagu xakameynayo. Hindiya iyada bandow ayaa lagu soo rogay habeenii maalin ah, waxaana la sheegay ujeedadu inay tahay sidii looga hortagi lahaa xanuunka. Iiraan waxa ay diiday kaalmo uu Mareykanka ugu yeebahay oo uu sheegay in uu doonayo inuu gacan ka geysto maadaama Iiraan ay ka mid tahay wadamada uu aadka ugu galgashay xanuunkan. marka waxaa muuqata adduunka oo dhan xanuunkan inuu saameeyay. hagaag Bashiir Maxamed Caata ayuu ahaa oo stuudiyaha la fadhiyay isla markaana inaga warramaya wararkii ugu dambeeyay cudurka coronavirus iyo saameynta uu caalamka ku yeeshay. isla wararka la xiriira caabuqa coronavirus ayaan ku guda jirnay. tirada dadka qaaday caabuqa corona ee dalka Kanada ayaa sii korodhay iyadoo dadka iyo dowladda dalkaasi oo isku duuban ay markaasi bilaabeen ololaha wacyigelin ah oo lagu xakameynayo xanuunkaasi. warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa goor uu naga soo diray dalkaasi Kanada Duraan Xasan Yare. tirada dadka qaaday caabuqa corona ee dalka Kanada ayaa siyaaday korna u dhaaftay 1400 oo qof kadib markii xanuunku ku faafay inta badan gobolada dalka. waxaana arrintan sababtay in dawladda iyo howlwadeennada caafimaadku laba jibaaraan wacyigelinta dadka si loo xakameeyo xanuunka, iyadoo dhakhaatiirtu dadka ay farayaan fariimo ay ka mid yihiin gacmaha mayra guryaha jooga. wacyigelintan ma ahan mid ka imaanaysa dawladda iyo dhakhaatiirta oo kaliya. Ben Click waxa uu ka mid yahay fanaaniinta ugu caansan dalka Kanada, wuxuuna bilaabay in xirfadda uu yaqaan ee muusiga ama heesaha uu ku wacyigeliyo taageerayaashiisa iyo guud ahaan dadka, isagoo soo saaray hees wacyigelin ah oo uu dadka ku farayo inay guryaha joogaan kana fogaadaan goobaha lagu badan yahay. There's something going around up in the air and I need to stay home and take special care. inkastoo wacyigelintan ay ka socoto guud ahaan dalka ayaa su-aashu waxa ay tahay Soomaalidu ma u hoggaansameen wacyigelintan maadaama waxyaabaha laga digtoonaanayo ay ka mid yihiin isa salaamida iyo isu imaatinka oo ay Soomaalidu caan ku tahay. waxaan su-aashaas weydiiyay Liibaan Daahir oo ka shaqeeya arrimaha bulshada kuna nool magaalada Toronto, sidoo kalena ka mid ah dadka u ololeynaya ka hortagga faafidda caabuqan. la socotaba dawladaha badankood amaray soo dejiyeen oo ay shacabkooda ay ugu sheegayaan in amarada loo hoggaansamo si loo yareeyo cudurka iyo dhibaatooyinkiisa. sidaa darteed dawladda Kanada shuruuc badan ay soo dejisay, dadka badankood waa u hoggaansameen oo la socotaba Soomaalidoona ka mid tahay. waa jiraan dad qaarkood la socotaba dhaqankeena Soomaaliyeed salaanta iyo isla kulanka waa waxyaabo muhiim noo ah marka society-ga loo fiiriyo. tii xoogaa dhib ay keentay sababta ay keentay waxa waaye qofka cudurka qaba lama yaqaano, qabiil kuma xirna, dhaqaale kuma xirna, aqoon kuma xirna, wiilkaaga qaadi kara, walaalkaaga qaadi kara, gabadhaada qaadi karta, xaaskaaga qaadi. marka dadka badankood waa u hoggaansameen sharciga saan aaminsanahay, waliba Soomaalida gaar ahaan la socotaba meelihii cibaadooyinka xataa hadda. codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii uu nooga soo diray dalka Kanada Duraan Xasan. halkaad nagala socotaana waa laantaabka Soomaaliga ee BBC-da. qodobo kale ayaa noo soo socda oo la xiriira isla cudurka coronavirus. hagaag intii uu ka dilaacay dunida xanuunka coronavirus waxaa saameyn weyn ku yeeshay dhinacyo badan dhanka isu socodka dunida, waxbarashada, goobaha cibaadada iyo waliba isdhexgalka bulshada. haddaba dalkani Kenya ayaa ka mid ah goobaha cudurkani lagu arkay, waxaana sii kordhaysa tirada dadka u haleelay cudurka oo imika gaartay 15 qof, waxaana dawladdu ay soo saartay tillaabooyin cusub oo cudurkani lagu xakameynayo. waxaa tillaabooyinka goobaha ay saameynayaan ka mid ah masaajidada muslimiinta ay ku cibaadaystaan. waxaa la xiray masaajido badan oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala xaafadda Isli oo ay Soomaalidu ku badan tahay. Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa iga warramay siduu ku yimid go'aanka xiridda masaajidada. tirada dadka qaaday caabuqa corona ee dalka Kanada ayaa siyaaday korna u dhaaftay 1400 oo qof kadib markii xanuunku ku faafay inta badan gobolada dalka. وهجاج warbixintaasi dabcan dib ayaanu markaasi ugu soo laaban doonaa haddii aan imika qodob ka duwan qodobkaasi aanu eegno. Axmed Suleymaan Tubec waxa uu la dhashay fanaankii weynaa ee Maxamed Suleymaan Tubec oo fanka Soomaalida caan ku ahaa. Axmed waa suugaanyahan balse suugaantiisu waxay ka duwan tahay tii lagu yaqiinay walaalkii Maxamed Suleymaan. Axmed waxa uu si weyn u curiyaa suugaanta dhanka diinta ah. wariyaha BBC-da Mawlid Xaaji Cabdi ayuu u warramay Axmed Suleymaan Tubec.
fankaygu wuxuu kaga dawaya dadka kale waa soo waaya arkayo muddo waxaan bilaabay fanka 57 1957 haye radio Hargeysa live buu ahaa radio Jabuuti laftiisa live buu ahaa markaan ka heesi jiray wax record la yiraahdo waxba jirin wax recordka 60 buu soo gaaray waa gartay marka waxaan ka duwanay anigu markii hore heesaa baan ahaa markii music baan bartay Allahumma salli ala Muhammad waxaan dabato u bayray ida xagga ay Afrikadaasaan galay aniga iyo niman kale oo saaxiib ahayn oo ka mid yahay Maxamed Yaasiin Deeg abwaanka weeyay xildhibaankana iyo Bashiir iyo baan lahayn Cabdulqaadir leeyahay Cabdullaahi nin leeyahay baan badan iyo laba hablood oo Caydiid iyo inayto Khadra Abdi Ahmed marka heesahaygu waxay kaga duwan yihiin heesahaygu bariga waxay kaga duwanaayeen إما كذا لفتة واحد هيستان هسان أنا أقول إيه BBC ده واحد يالله هسان الله أنا أقول إيه سيه واحد يالله أنا جو قبل ما وضع هذا BBC ده جاي يالله ويا جماعة إن محاتري سامرك أدوجو إن سوغان هذا ومد عين كيا سوغان تدو حوي الده هسه وحكم ده هسه جور هيك في الله جور جايدا وحكم ده هسه ليلها معها خضراء قيمة خلقات يروح ضد بعض القصة وحكينا رواية لنا السبعية واللي هي سيد وأنا ميلا كبحنا نسيد وهاي وميسي جدي وحده أنت لطبي محمد سليباني وهاي سيد أحمد دكساريو حاوة محموديو فاضوريو أنا إياه كوده هذه الرواية بهذا تجاشتي مركز دجال كل عيبة دبتك تشوف سنة أنا قربنا وقوينا نصاب بحنا مركز واحد كجد وانا أنا قوي مك صلوات كالنبي قصايد كالسوقان تديني قابل كجد وانا وياي بالقار كم إذا من مقاشين كرتها أمس ما كله قاين كرتها هاي موسيقى ما كيما أجي على مولده مركز واحد نقول سهديها الحاسة يا وحدين صدر يا إنا هالجيسة تقول إن شاء الله على حدي روريها حاسة هي قاعد وعنك waxa kamida nafsi ruuxi gaaxsha godolkiisa maale sidanaanigu ku galay gafinay sidadigu argudashadaaduna garilaahay wey iga goosan awaad iga gacan saray qof gafa aqalkii yahay guudaramtee waxaana aynin gabadhyahay gacantaadu malik waxaana ay gareexiyo godobka tirsanay guurhayga filanine gurigayga odaybaan hooy marka codkaygu ma fiicneen weli codkaaga waa hallaasi jaamaco waa yahay jaamac waxaad iiga warantaa allaha u naxariistee maxamed suleymaan tubeec walaalkaa buu ahaa waa fanaan caan ah oo Soomaaliyeed boqorkii fanka la yiraahdaa maxaad ku kala duwan tihiin adiga iyo maxamed allah raxmadee maxamed waxaan ku kala duwanay markii hore fanka ana ugu horeeyay maxamed marka anigu isagu soo galay marka anigu ka baxay fankii marka Afrikada inta kulubay toban sano ku baqay soo noqday marka soo noqday waxaan bilaabay suugaanta diiniga waxaan ku kala duwanay waxa la yiri waxa loo bixiyay boqorkii cod markii anigu aan heesi jiray idaacada radio Hargeysa ka heesi jiray iyo Jabuuti aan محمد سليمان مركو قالي وحليني وجامع سليمان ولكن مقعيقي بشقيني مركي إمك هذا إلا الآن كان عادي هذا المولد وحلقويد وجامع محمد سليمان ولكن قلت أخذ يوم قرأت هذه مركي أبو مقع وين هذه وقرأت عد كان له بحي الله يرحمه محمد لو بس بنشرين الرياضة أمه لو سبنشرين واحد ميسي قال نكاس ميسي قال حريف قضوه هاي لمو تبنشرين هذا وادي على كل الحنة والسمية سيجا إذا ميسي قو كتيرا وايهي وقد بينتي جامعه كوان ديني suugaantaada bal mid kamid ah dad qacay nooga siiso waxa kamid ah ilayto suugaantada diiniga way badan tahay aad iyo aad bay u badan tahay waxa jira qaar alifka ka bilaabmaya ilaa yaada waxa jira qaar soo kooban oo gaaban oo waqtiga BBC oo kala ay soo gaariyo ay gali kara waxa kamid ah qasiidada caanka ah ee bisha Ramadaan nasiida ayaa waaye وبشي نحرستي وتنبيداف كبدنيده فرحت عيونكي يومان تبع الله إلى بدباشو بشي وي قرانكي هبين كالي البركة سنة الله إنه بيجي يا الله أبدا خيرك بشي وي يجدكنا حمه وكبحاية بإواية كميرو يا الله أبدا خيرك وبشي نبريسي مسكين كباهيدو هيسو وحيقات شبقيسي يلا بدي خيرك wagakaasi waxa uu ahaa Axmed Saleebaan Tubeec oo markaasi ah abwaan Soomaaliyeed oo la dhashay boqorkii codka Maxamed Saleebaan Tubeec
haddii intaasi aan uga gudubno dib aan ugu laabanno warbixintii hore intii uu ka dilaacay dunida xanuunka markaasi coronavirus waxaa saameyn weyn ku yeeshay dhinacyo badan oo dhanka isu socodka dunida waxbarashada goobaha cibaadada iyo weliba isdhexgalka bulshada haddaba dalkani Kenya oo ka mid ah goobaha cudurkani lagu arkay ayaa waxaa sii kordhaysa tirada dadka uu haleelay oo imika gaartay 15 qof waxayna dawladda soo saartay tillaabooyin cusub oo lagu xakameynayo cudurkani waxaa tillaabooyinkani ka mid ah goobaha ay saameynayaan goobaha cibaadada sida masaajidada oo la amray in la xiro waxaa imika la xiray masaajida badan oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala xaafadda Isliya Soomaalidu ku badan tahay Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa iga waramay go'aanka xiridda masaajidada bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wuxuu ahaa laba arrimood baan markii horeba ku xidhnay masaajida xiritaankooda in xaaladda caafimaad ee waddanku ka sii darto oo tiradan hadda kooban ee 7 ah wax ka siyaasan ay yimaadaan oo khatar la dareemo iyo in dowladda khaasatan national government inuu amar toos ah oo goobaha cibaadada ku saabsan inuu ka yimaado labada qodob baan markii horeba ku xidhnay intaan la gaadhin inaan masaajida xiritaankooda lagu degdegin taladanadii hore iyo go-aankii hore kaasuu ahaa waa ka wasiirka caafimaadku hadlay oo amar toosa ku bixiyey in la xidho goobaha cibaadada masaajida iyo kaniisadaha uu carabka ku dhuftay iyo weliba goobaha guud ee laysugu yimaado dhammaantood sidaasaan marka masaajidadii ku xidhmeen marka masaajidada hadda sidan ay ku xiran yihiin mise waa lagu sii tukan doonaa oo maalmo kadib ayaa la xiri doonaa maya masaajida waa la xidhay masaajida qaarna maqribkii baa la xidhay go-aanka wasiirka wuxuu soo baxay maqribka wax yar ka hor qaarna maqribkii bay tukadeen oo way xidheen qaarna ceshihii baa u dambeysay ceshihii wixii ka dambeeya masaajida way xidhan yihiin intaan ka warhayo marka ma la odhan karaa in arrintani ay tahay uun mid lagu qasban yahay oo haddii talada culammada ay ahaan lahayd ay masaajidada sii furnaan lahaayeen oo cudur dadkii aanan loo xidhayn annaga kulley waxaa noo muuqan kara inay jiri karaan qaab masaajiduna iyo goobaha cibaadaduna kusii furnaan karaan islamarkaana la qaadan karayo talooyinka caafimaad iyo is-ilaalintii iyo tacliimaadka kasoo fulaya jihaadka arrintan u xilsaaran marka in la iswaafajin karo ra'yigaasi waa noo muuqdaa laakiin haddii dawladdii amar soo saartay markaa khiyaar ma jiro cid jecel iyo cid necebba dawladdu hadday goobaha xidhaay cidina muxuu ahaaye dee awood uma laha inay ka hortagto ama ay diido haddii cudurkani uu sii socdo oo waxay sheegayaan dadka khubarada ah in laga yaabo in muddo bilooyin ah uu sii socdo marka haddii masaajidada ay bilooyin xirnaadaan arrintaa bal ka waran saameynta ay diiniyan iyo cibaadada ku yeelan karto wallahi saameyn weyn hadda way leedahay oo goobihii ilaahay lagu caabudahayey oo muxuu ahaaye inay xidhnaadaan oo muddada ay xidhnaadaan oo arrin culayskeeda leh in la xidho marka horeba culayskeeday lahayd laakiin haddee sidan kuu sheegay masaladuna waa masale lagu kala aragti bedelaya culimadu duruufta caafimaad iyo cudurkan iyo saameyntiisuna tixgelinteeday leedahay waxaasoo dhanse waxaa ka weyn oo hadda meesha yaalla oo khiyaarba uusan ka furnayn amarka dawladduna dee inta dareenkani uu jiro ama cudurkan faafidiisii wax ka sii laaban tahay waxaan u malaynayaa inay sii adkeeyaan mooye inayna soo dabcin doonin oo hadday waktigu dheeraadaan oo masaajida xidhnaantooda sii dheeraan doonto almuhim waa wax khiyaarkanaga ka baxsan ilaahay baana weydiisanaynaa inuu ummadda dhibaatada ka dulqaado inta jirana ilaahay caafiyo inta kalena ilaahay ka ilaaliyo marka cudurrada noocan oo kale ay dhacaan dawladdana ay soo saarto amradan oo kale diiniyan maxaa in masaajido la xidho loona xidho cabsi cudur ay diintu ka qabto adoo soo koobaya kolley horta taariikh ahaan marka dib loo raaco taariikhda muslimiinta cudurro kuwan oo kale ka daran waa dhici jireen oo aada u daran inkastoo gobollo iyo deegaanba khaasa ay ka dhici jireen oo kumanyaal ay ku dhiban jireen marka taariikh ahaan kolley intaan garanayo ma arkin in masaajida ama dawladdu amar ku soo saarto ama culimadu fatwoodaan masaajida hala xidho cudurradan baa lala tacaali jiray walow adduunku sidii hore ka duwan yahay isku furan yahay oo kii hore uusan ahayn hadda waktigan la joogana culimada muslimiinta hadda jooga waa ku kala aragti bedelan yihiin qaar waxay leeyihiin masaajid ayaan la xidhin iyo goobaha cibaadada oo meeshii loo carari lahaa
qaarna waxay leeyihiin halistu waa weyn tahay, shareecada ruqaskeeda iyo taysiirkeeda hala qaato oo dhanka badbaadada nafta la tixgeliyo. marka waa aragti kala duwan waaye, culimada midba doodiisu dhinac bay u badan tahay. kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed cabdi umal oo iiga waramayay masaajidada xaafadda Islii oo markaasi albaabada la isugu dhuftay cudurka corona awgii. qaar ka mid ah dhegeystayaasha Facebook ayaa kasoo dhiibtay ra'yigooda. Badri Cabdullaahi Ibraahim oo jooga magaalada Boorama waxa uu leeyahay dalka Kenya albaabada la isugu dhuftay masaajidada caabuqa coronavirus awgii runtii waan ka xumahay, waayo wuxuu alla qadaray sinaba laguma seegay ayuu leeyahay. waxaana markaasi habboonayd in wakhtiga salaada la soo gaabiyo, balse ma habboonayn in gebi ahaanba la xiro ayuu leeyahay. uu mahadsan yahay dhegeystahaasi. jamiilo cabdulaahi oo iyaduna joogta magaalada muqdisho waxay leedahay dalka Kenya albaabada la isugu dhuftay masaajidada sababo la xiriira cudurka corona ee dhibaatada ba'an ku haya dunida. waxba soo kordhin mayso xiritaanka masaajidada laga gol leeyahay in lagu yareeyo isu imaantiga bulshada, maxaa yeelay dadka muslimiinta badankood kama dhaadhacsana halista cudurkani ayay leedahay. waa mahadsan yihiin dhegeystayaashaasi dhanka Facebook halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee BBC-da. qaybihii dambe ee barnaamijkii subaxnimo ayaanu soo gaarnay. haddii ciyaarihii aanu eegno, cudurka coronavirus waxa uu saameyn ku yeeshay dhan waliba, haddii aan lahayd dhanka isu socodka, dhanka kale ee markaasi dhaqaalaha. haddaba qaybaha uu saameynta ba'an ku yeeshay waxaa ka mid a ciyaaraha, oo waxaa baaqanaya ciyaaro badan oo markaasi la ciyaari lahaa. ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan ayaa imika sheegay ama qiray in ciyaaraha olombikada ee loo ballansan yahay in dalkaasi ay ka dhacaan xilliga xagaaga dib loo dhigo sababo la xiriira xanuunka corona oo dhibaato ku haya dalal badan oo caalamka ah. Shinzo Abe ayaa waxa uu sheegay in halista cudurkaasi ay tahay mid sababi karta in dib markaasi ciyaarahaasi loo dhigo. hay-adda ciyaaraha olombikada adduunka Canada iyo Australia ayaa iyaguna waxa ay dhankooda sheegeen in aysan suuragal ahayn in ciyaarahaasi ay qabsoomaan, maadaama sida ay sheegeen ay taagan tahay dhibaatada caafimaad ee ka dhalatay xanuunka corona. ciyaaraha ayaa waxaa loo ballansanaa olombikada in ay qabsoomaan bisha Julaay, waxa ayna markaasi ay qeyb ka noqon lahaayeen tartamada ama tartanka ciyaaraha adduunka ee la baajiyay ayaa ka mid markaasi qeyb ka mid ah. barnaamijka subaxnimo soo saaray Ciise Xaaji Cabdulle oo markaasi idinla socodsiinaya anigu Axmed Badar ah ayaa intaasi inaga dhan.